waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 250 2020 eedeysana ka yahay Cabdilaahi Axmed Maxamed Xaaji Gaabow ina Yusra Faarax Cali 46 jir ah ku dhashay xamar degan degmada Dharkeynley kuna eedeysan qodobka saddexaad ee xeerka hay'adda maaliyadda kaasi oo lagu eedeynayay inuu samaystay Gaabow General Company oo u dhaqmaysay sidii bank ahaan iyadoo aan liisan ka shirkadaasi oo aan liisan ka haysan bangiga dhexe ee dawladda xukunka maxkamadda waxay ku heshay qodobka eedda lagu soo eedeeyay qodob aan ahayn si waafaqsan qodobka 124 waxaana ku xukuntay oo ku heshay qodobka koowaad ee xeerka hay'adda maaliyadda Financial Institution Act waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo 920,000 oo dollar oo ganaax cidii aan ku qancin waxa uu furan rafcaan